kusoo dhawaada videogan oo maanta nagala hadli doono saddexda shay ay ka siman yihiin dadka hore u maray. dadka hore u maray runtii waxyaalo badan oo ay iskaga mid yihiin ama iskaga eegyihiin way jirtaa, laakiin saddexdan shay aan idin sheegayo waa saddexda shay ugu muhiima ee keenaya maanta inaad tallaabo qaadi kartiin. intaan taa dhexgelin waxaan tusaale rabay inaan igu soo qaato mulkiilayaasha maanta heerka gaari sida mulkiilaha Alibaba, YouTube, Twitter, Facebook iyo qaar kale oo badan. markay stage ka soo joogsadaan la su'aalo maxaa keenay maanta inaad heer gaadhiin, waxay badidoodu mid kastaba qisadiisu ka sheekeeyaa, xalku soo maray, dhibaatooyinku soo galay, marxaladuhu soo maray, siduu uga baxay waxa uu ka hadlaa. su'aal kale la weydiiyaa waxa lagu yiraahdaa maxay tahay inta yar ee maanta keentay, inta yar talaabada yareed qaaday ee keentay maanta inaad heerka maanta aad joogtid aad timaadid. markaasuu ka hadlaa. halkaan anu waxaan ka arkaa mid kastaba ka kale inuu ka duwan yahay, mid kastaba uu la imiday arrin u keentay maanta inuu heerka maanta. saddexdaa shay wuxuu yahay ay dadka hore u maray ay ka siman yihiin ama iskaga eegyihiin, ay ku dhaqaaqeen, ay u keeneen inay tallaabada sameeyaan. waxa kamid ah ta ugu horeysa, horta waxaan yareed haysatay inaad ku qanacdid. waa dad ku qanacsan wax ay yaray imika haystaan, waa dad ku qanacsan oo iska iimaan qaba oo intaa yar iskaga shukrinaya, iskaga xamdinaya. waxa yareed haysatid, for example haddaad maanta 2 kursi haysatid, dee waad ku fariisanaysaa oo dee waad daantaa ka kale dhulka fadhiya ee ka fikiraya siduu u heri lahaa ma wax yaru dee soo siista kursigii. qofka dhulka fadhiya maanta adigu tallaabo kuley waad ka yar horeysaa. marka dadka hore u maray waa dad marka u horeysa kow waxa yaray haystaan in aaminsan. midda labaad waxa kale ka sameeyeen waxa weeyaan waa dad arrimahooga ayagu gaar u yihiin. haddaynu ibni aadan nahay, haddaynu nahay khaasatan Soomaali, waan iska yar hadal badan nahay, waan u tagnaa qof walba oo qorsheena kala sheekaysanaa, talo badan baynu raadinaa. marka runtii waxa muhiim ah arrimahaagu inay gaar ku ahaadaan. ibni aadanka waad ogtihiin xasadku iska badan yahay, ibni aadanka waad ogtihiin damacu iska badan yahay. marka arrimahaagu adiga gaar ah ku ahaado oo ku dadaal sidaad uga bixi lahayd, sidaad u maareyn lahayd, sidaad u hagaajisan lahayd. cidda aad su'aalaha soo weydiisan lahayd, su'aalo guud ahaaneed weydii, ha u dhexgelin, ha u sii furfurin projectyadaada. arrimahaagu gaar ah ku ahaadaan. arrinta saddexaad ee ka sameeyeen waxa weeyaan waa dad hadday kufaan fadhiga aan ku raagin. arrinta saddexaad dadka hore u maray, arrinta saddexaad ay ka sameeyeen iskaga eegin waxa weeyaan waa dad hadday kufaan fadhiga aan ku raagin markaaba kaca. maanta dadaal markaad ku jirtid, adduunkan waa adduun iska imtixaan badan, adduunkan waa adduun iska su'aalo badan, adduunkan waa adduun loo ordayo adduunkan waa adduun aad marna aad faraxsan tahay, marna aad murugaysan tahay. adduunkani khaasatan hadday business tahay, haddaad qoys dhisanaysa, haddaad tacliin ku jirtaba, ay imtixaanku iska badan yahay. marka dadka hore u maray waxa weeyaan waa dad marka ay kufaan aan fadhiga ku raagin. taa waxaan ka wadaa in wax arrimuhu qorshooyinku sanadna hadday business tahay wuu ku hagaagi karaa, sanadka kale waxa dhici karta inaad khasaaro gaadho, laakiin khasaarahaasi kama dhigna arrimahaaga xagaasi ku joogsadeen. waad kuftay, doo waa inaad dib u kacdidood arrimihii wixii keenay khasaarahan iyo waxan inaad ogaato wuxuu yahay si aad uga gudubto. marka dadka hore u maray saddexda shay ay ka siman yihiin, saddexda shay iskaga eegyihiin, saddexda shay ee muhiimka ah. runtii wuu iska fudud yahay, laga yaabo inaan wax weyn loo arkin, laakiin waxa weeyaan 3 shay oo muhiima oo maanta marka aad wax ku dhaqaaqayso tallaabada ugu muhiimkeed qaadaysa inay tahay 3 shay inay ku jiraan. waad aragteen dadka orodyahanka springa sameynaya 100 mitir markay joogsadaan waxa ugu muhiimsan dhaqaaqa ugu horeeya hadduu kor isku tuuri waayo ugu horeyn waayo meesha orodkii wuu ugu dambeynaya. markaa doonaysid inaad horumar gaadhid, markaa doonaysid inaad qorshe aad waxyaalo aad sameysid, dee tallaabada u horeysa waa muhiim. tallaabada u horeysa ee dadka hore u maray ay qaadeen waxa weeyaan 3 shay ee sheegay. ay ugu horeyso kow waa dad ku qanacsan waxay haystaan, 2 waa dad arrimahoogu gaar u yahay, 3 waa dad markay kufaan fadhiga aan ku raagine hore ka kacaya. marka walaalayaal, sanad cusub, maalmo cusub, saacado cusub, waxaan nii rajeynayaa guul. 3 shayna waa 3 ugu muhiimsan ee tallaabada u horeeya lagu qaadaba. waxaan leeyahay sanad khayr qaba dhamaantiin.